taageerayaasha kooxda Real Madrid ee dalka Spain ayaa si weyn uga xumaaday markii ay arkeen ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo xiran garanka kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. waana ciyaaryahan Ronaldo oo muddo 9 sanadood la joogay kooxda Real Madrid, muddada oo uu noqday ciyaaryahankii labaad ee ugu wanaagsanaa ee kooxda soo mara, waxaana ka horreeyay oo kaliya xidigii kubadda cagta ee Alvaro Di Stéfano oo ahaa ciyaaryahankii qaybta ka qaatay qaabkii ay kooxda Real Madrid uga soo gudubtay koox yar dabeetana u noqotay mid ka mid ah kooxaha ugu caalamisan dunida. waana xilligii uu kooxda maamulayay gudoomiyihii loogu magac daray garoonka kooxdu leedahay ee San Diego Bernabeu. inkastoo ay haddaba sidaa tahay, haddana in badani waxay ka aaminsan tahay in aanu marnaba Ronaldo gelin qulubta tababarayaashii kooxda soo maray muddadii uu isagu ciyaariyay, halka sidoo kalena ay suuragal loo arkayay in kooxduba aanay gelin qalbiga Ronaldo oo aanu marnaba jacayl gaar ah u qaadin. waana daraasad la weydiiyey taageerayaasha kooxda iyadoo la barbar dhigayay ciyaaryahanka Luka Modric oo inta badan taageerayaasha kooxdu ka aaminsan yihiin waxyaabo aanay ka rumaysnayn Cristiano Ronaldo. taageerayaasha aaminsan Luka Modric ma aha kuwo ay ka qarsoon tahay guushii uu Cristiano u soo hoyay kooxda iyo doorkii uu ku lahaa horumarkii taariikhiga ahaa ee ay kooxdu ka samaysay ciyaarta kubadda cagta muddadii 9 sanadood ahayd ee uu ciyaariyay. ciyaaryahanka waxa uu 438 ciyaarood oo u saftay Real Madrid u dhaliyay 450 gool, waana hadaf ay in badan suuragal ka dhigi karaynin 10 sanadood iyo ka badanba. mana ahayn ciyaaryahan u ciyaara inuu gool dhaliyo oo kaliya, laakiin waa mid ciyaarta dhexdeeda ku dadaala inuu noqdo ciyaaryahanka ugu wanaagsan. qaabka uu ciyaarta ugu hilbadiriro iyo shakhsiyadiisa hogaamineed ee ay dheertahay hamigiisa ku aadan inuu gaaro guulo fara badan, kuna guuleysto koobab iyo abaalmarino shakhsiyadeed iyo kuwo kooxeedba oo lagu lamaaninayo xirfadiisa ciyaartoynimo, waxay siisay Cristiano Ronaldo inuu ka dhigo xilligii uu Real Madrid la joogay waqtigiisii ugu wacnaa intii uu ciyaarta kubadda cagta ku dhex jiray. waana muddada uu tartanka iyo xafladda ka adagii kala dhexeeyay ciyaaryahanka reer Argentine ee Lionel Messi, isagoo Cristiano doonayay inuu Real Madrid ka muujiyo wax la mid ah ama ka wanaagsan waxa uu Messi u qabanayay kooxda Barcelona ee isla dalka Spain. arrinta laakiin caqabada ku noqotay ciyaaryahanku waa kala duwanaanshaha labada gudoomiye ee labada kooxood ee dhanka dhaqaalaha ku kala adag, isagoo gudoomiyaha Real Madrid Florentino Perez si fudud u aqbalay go'aankii uu Ronaldo kaga tagay kooxda markii uu Ronaldo culays kala kulmay qaybaha cashuuraha ee dalka Spain oo uu arkayay inay qaali ku tahay cashuur sanadeedka laga qaado, xilli uu dalka Talyaaniga sanadka oo dhan cashuur ahaan u bixin doono 100,000 euro. kooxda Real Madrid ayaa lafteedu caqabad kale waajahaysa xilli ciyaareedka cusub kadib markii ay muddo 7 gudihii ay ku weyday tababaraheedii iyo ciyaaryahankeedii ugu fiicnaa. inkastoo ay kooxdu dhacdo sidan oo kale ah oo ku timaada ay kasii gaashaamatay oo sanadihii u dambeeyey garoonkeeda ku soo ururinaysay ciyaaryahanno da'yar oo xirfadoodu wanaagsan tahay, inkastoo aanay jirin cid u buuxin karta ama u soo dhoweynaysa wixii uu Ronaldo u qabanayay kooxdaasi. kooxda Real Madrid ee Ronaldo u yimi sanadkii 2009 maanta uu ka tagayo ma aha Real Madrid maalinta, iyadoo muddadaas 9 sanadooda ay Real Madrid wax ka bedeshay saameyntii ay xilliga kooxda Barcelona ku lahayd wadankaasi iyo caalamka, iyadoo Barcelona xilliga maraysay waqtigeedii ugu fiicnaa una tababaro u ahaa Pep Guardiola, iyadoo kooxda Real Madrid ay 5 sanadood ee u dambeysay 4 jeer ku guuleysatay koobka kooxaha horyaalada reer Yurub ee kubadda cagta, 4 jeer oo 3 ka mid ah isku xigeen. xilligana waxay isu diyaarinaysaa Real Madrid sidii ay u sii wadi lahayd horumarkeeda, gaar ahaan xilligan oo aanu la joogin Cristiano Ronaldo, waxaase halkaa ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Luka Modric, Gareth Bale iyo Rafael Varane.